bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asxaabta waada salaam meel kastoo dunida tacaladeed ka joogtaan. waa Ayuush Cabdiqaadir youtube channelka daawanaysin waa Ayuush Cooking and Beauty. waxaan rajeynayaa in ay caafimaad qabtaan anna sidoo kale. marka hore waxaan idin leeyahay asxaabay soo dhawaada, gacmo furan qalbi furan. channelkiina waaye. haddii ay tahay marka kugu horeysa channelka aad soo booqatay, subscribe saar, gambaleelka furo si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan soo geliyo. videoga haddii aad ka hesheen like saar, wixii fikradana commentiga hoos waa igu reebi kartaan insha Allah. maanta waxaan inoo wadaa muuqaal kale cusub. saa u jeedaan bawanta waxaan sameysanaynaa hadduu ilaahay idmo liintan qolofkeeda farsameysan doonaa. inta taqaana wayba taqaana, intaan aqoon ka faa'iideysta aad leeyahay. waxyaalo badan ay faa'iido u tahay, sida haddii ahaan lahayd maaska wajiga oo kale, midka madaxa, doolshada oo kale markaad sameysanayso kala ku carfsan kartaa, sida buskudka oo kale. waxyaalo badan aan la soo koobi karin, faa'iidooyin badanna way leedahay. maalinba midka ka gaaran insha Allah waa idin soo gelin doonaa hadduu ilaahay idmo. saa u jeedaan meesha waxaan ku haystaa 2 xabo oo liin ah. labadan xabo liinta rabaa qolofkeeda inaan fiiqo kadib insha Allah sida u sameynayaan waa arki doontiin. ay liinta haystada ka sameysan kartaa liin macaanta ama liin bambeelmada. ani hadeer liintaan haystaa midaan ka sameysan doonaa insha Allah waan arki doontiin. caraf ahaan hadii la dhaho ayada xitaa masha Allah tabaarkalla carafteeda masha Allah waaye, lagama sheekeyn karo sida u carfeyso. waxaa kaliya aan ku doorta caraftaas waaye. buskudka kale ama doolshada kale markaa ku darsatidaan ku dhaqaaliska arag. saliid madaxa kale markaa ka sameysanayso kale ayadana caraf kale oo gooniya siinaysa masha Allah. ani ahaan inta shay aan isticmaalo kale insha Allah waad la soo shirkiran doonaa. maalinba midka ka gaaro ay idin soo gelinaya. hadda labadan xabaa soo fiiqaya, si yar u soo jarjaraya kadibna waa arki doontiin. saa u jeedaan waa soo jarjaray, si yar u soo jarjaray. hadaa rabto isla markaas inaad samaystidna furunka gelin kartaa. markaas hadaa jarjartid isla markaa furunka gelinay 15 daqiiqo camal kor iyo hoos u daaray, isla markaasna waa shiidanay. laakiin ana hadda ma rabo, si tartiib waxaan rabaa inay kaskeeda u qalasho. miiskaas ka saare hal habeen oo kale kadibna wuu ku qalalayaa, si tartiib uu ku qalalayaa. saa u jeedaan masaan ku soo baxay, hal habeen aan miiska saaray kadibna qalal ziyaadana ma ahan, qoyaanna ma ahan, waa iska dhexdhexaad waaye. hadaa rabtid inaad isla markaas samaystid saa hore kugu sheego furunka gelinay. haddii aad rabtid inaad si qalajistidna oo maxay ahayd furunka inaad ku samaystid aad rabin 2 habeen 3 habeen oo kala dhiganaya. laakiin ana 1 habeen oo kala soo dhigay. waa u jeedaan masha Allah. hadhowtana maxay ahayd markaa sameynayo ama ashiidayo kalena waa ka dareemi kartiin. qoyaan ziyaadana ma ahan, qalal ziyaadana ma ahan, dhexdhexaad waaye. hadda marka waa shiideena. waxaa soo qaata qalaadada qaybta heelki iyo waxyaalaha qalalan lagu shiido, midkaas aan ku shiidanaya insha Allah. masha Allah waa soo shiiday. saa u jeedaan ba si fiican oo ku celiyo waliba. haddii ay kasii qalalnaan lahayd kasii fiicnaan lahayd, si fiican u sii shiidmi lahayd. laakiin qoyaan yariisa ku jiro dhib ma lahan. waa shaqshaqi doonaa aan markaa ku shaqshaqaa. waa kana sidaan quruxda badan oo kusoo baxday masha Allah tabaarakallah. saan ku dhaafay waa soo shaqshaqaya waayo waxaan rabaa inaan ku darsado
duulsho. Maaskin inaan ka samaystaan waa rabaa. Midka aan ka shaqshaqin ma haysto ma daadinay waa si isticmaali doonaa asna waxyaalo kale aan ka sii sameyn doonaa insha Allah waan idin soo share gareyn doonaa haddii Ilaahay idmo. sidaan quruxda badan ku soo baxay maasha Allah tabaarakallah wax badan maahan hal yariisa sameeyay waxaan jeclaystay in aan la wadaago insha Allah waxyaalaha kale oo aan ka sameyn doono haddii Ilaahay idmo fiidiyoada kala soo socda aad ku la wadaagi doona haddii Ilaahay idmo hadda wali yara ku shubanaya baaquli plastic yar isku dabool aan ku xafidayaa muuqaalka dhamaadkiisa hadii aad soo gaartay waa kaaga mahadcelinaya aad iyo aad maasantaan ku leeyahay waqtigaada quruxda badan hadii channelka aad ku cusubtahay marka kugu horeysay aad soo booqatay ee tahayna subscribe ka saar gambaleelka furo si uu kuu soo gaaro muuqaal walba aan soo geliyo fiidiyowga hadii aad ka heshana like saar wixii fikradana commentiga soo reebi kartaan waa walaashii Ayuush Cabdiqaadir oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.